بسم الله الرحمن الرحيم. horta waxaan mahad u celinayaa shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan taageerada ay muujiyeen khaasatan kuwa qoraxda taagan ee biyo la'aanta iyo haraadku u leedahay. waxaan kaloo mahad u celinayaa ciidamada qalabka sida geesinimada leh ay u difaaceen qaranka Soomaaliyeed iyo sharafka ay u soo hooyeen shacabka ummadda Soomaaliyeed. waxaan hore ugu dhawaaqnay in ay ahmiyadu xukuumaddu ay tahay dhanka ammaanka. alla ma hadle in aan maxaan ku yiraahdaa aan wax garbaxnay wixii awoodina ahayd oo aan ciidanka qalabka siinay xuquuqdoodii iyaduna ay guteen waajibaadkoodii si ay u difaacaan cadawga in u soo celiyaan wadanimadii iyo geesinimadii lagu yaqaanay. bulshada rayidka ah salaadiinta culimada gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyaradaba waxay siiyeen xaqiiqdii kalsooni iyo taageero aan la xisaabi karin. mana ahmidaan iloobi doono. waa idin maqlay bannaanbaxyadii iyo shucuurtiinii iyo taageeradiinii sawaxankiinii waa maqlay. waxaana khasab ah in aan wax ku qaadano talada dalka waxaad ku leedihiin waxaad doonaysaan iyo rabitaankiinuna waa khasab in la maqlo. shacabka mid baan leeyahay ciidamadana mid kalaan leeyahay. shacabka waxaan leeyahay oo weliba hadda qoraxda u taagan u soo jeeda habeenkii maalinta dhan u taagan waxaan leeyahay in aad dib ugu noqotaan guryihiina. waxaan rabaa inaad maqashaan inaad dib guryihiina ugu noqotaan. maxaan ku raahdaa dhaqdhaqaaqyadan faraha badan la joojiyo ilaa hadda guryihiina inaad ku noqotaan ayaan ka codsanayaa. waxaan rajaynayaa in aad maqashaan. ciidanka waxaan leeyahay qalabka sida geesiyada ah difaaciina ku jira wada difaaciina ku jira una dhinta dalkiina hooyo. guusha aad gaarteenna dib yaan looga noqon. cadowgu waxay u eg tahay in uu guuldaraystay. yaan la xoojin difaaciina adkeeya. guushaad ummadda Soomaaliyeed iyo karaamadii aad ummadda Soomaaliyeed u soo hoyseenna mid la iloobi karo ma noqonayso insha Allah hadduu ay yiraahdo. marka taasna waxaan leeyahay adkeeya boosaska aad taagantihiin inaad hore u socotaan mooye gadaal ha soo fiirinina. ummadda Soomaaliyeedna iyo shacabka Soomaaliyeed waa in taageersan yihiin. waxaanad u soo celiseen qabkii iyo sumcaddii shacabka Soomaalida waad soo celiseen. waxaa kale oo aan leeyahay dadka oo tixgelin mudan in dawladdu uu madax u yahay Sheekh Shariif iyo golaha wasiiradu ay ballan qaadeen inay shacabka Soomaaliyeed garab istaagaan hil iyo hoona wax alla wixii tabarteena aan idin siino. marka intaasaan waxaan kusoo gabagabeynayaa dadweynuhu inay guryahooda ku noqdaan ciidamaduna ay adkeeyaan difaacooda. wabilaahi tawfiiq.